kadib markii uu xil qaadis ku sameeyay maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle maamulkii degmada Raagaceele oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa gaaray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan Hirshabelle oo hogaaminaya mas'uuliyiin cusub oo loo soo magacaabay degmada Raagaceele. mas'uuliyiintan ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay Raagaceele qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool. munaasabad xilka ay kula wareegeen madaxda cusub ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada Raagaceele waxayna ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan madaxdooda cusub. dadkii saan wax u sameeyay munaasabadaasaan u sameeyay waxaan leeyahay mahadbana ha ka gaar marka waxaan leeyahay dhammaan horta idinku hambalyeynaa mas'uuliyadda sare aad samaysateen iyo maamulka cusub waan idin shaqeyn doonaa diyaasbaradana waxaan ku encourage gareyn doonaa inay waddanka imaadaan maalgashi ku samaystaan xal sheegay geelba u baahnaa in dhaqano. gudoomiyaha cusub ee degmada Raagaceele loo soo magacaabay Cumar Cali ayaa ballan qaaday in si daacadnimo ku jirto ugu shaqeyn doono bulshada. waxaan ballan qaadaynaa inaan ka shaqeyn doono howlihii noola imaday sida waxbarashada caafimaadka amniga haba uga horeeyo. iyadoo mas'uuliyiin fara badan goobta ay ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Ismaaciil Muumin oo xildhibaan ka soo jeeda Raagaceele. degmada Raagaceele maxaa ku taageeray kartaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye halkan ah waa gudoomiye lagu batay waxqabad waxaan rajayn doonaa sanadka soo socda degmada Raagaceele laamiyo marayaan degmooyinkii iyo xarumihii caafimaadka iyo waxbarashada ay u dhisan yihiin. gudoomiyaha hore gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale oo kamid ah marti sharaf ka soo qayb galay munaasabada xilka kula wareegaya maamulka cusub ee Raagaceele ayaa waxa uu kula dardaarmay madaxda iyo shacabka in ay wada shaqeeyaan. waxaan rajaynayaa inay noqoto maanta fadhiga aan fadhino taagnada aan taaganahay gurooba u dhashay inay noqoto Raagaceele taysan noqonaynin gurooba u dhashay taysan noqonaynin waxaan u dardaarmaa hadda dadka hortooda inay ka dhaqaaqanaysa dadka ku daahin. beenkii soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan waxaan idinkoo ilaahayna tala saarahayo bulshadiina ku tashahayo inaad degmadan sida ay u taalo oo caafimaadkeedu liito oo waxbarashadeedu liidato oo xagga biyo la'aantu ay ka sii daran tahay dadkii u adeegi lahay oo intaasoo baahiya iyo inta ka sii kala qarsoonba Abubakar Maxamed Bacadle Radio TV qaranka Soomaaliyeed xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.